Kulanti wacan asxaabi meel walba joogtaa kor soo dhawaada kanaalka Arrimaha Fanka halkan maanta waxaan kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha aflaanta tiyaatarada Hindiya saaran waxaana soo qaadan doonaa filimka Good News iyo filimka The Bank Tree iyo Jumanji The Next Level iyo filimka Mardani 2 waxaana ku bilaaban doonaa filimka Good News. Filimka Good News waxa uu sameeyay ganacsi fiican jimcadiisa labaad asigoona keenay 8 ilaa 8.5 karoor. Hoos u dhacan ayaa ah kaliya 20% maalintii hore ee Khamiis. Sidoo kale waxa uu ka kormaray lacagaha Hustleford uu keenay jimcadiisa labaad. Sidoo kale 50% waxa uu ka hooseeyaa lacagaha uu keenay maalintiisa ugu horeysay ama maalintiisa koowaad ama jimcadiisa koowaad. Filimkan ayaa hadda ka gudbay 134 karoor 8 maalmood gudahooda, wuxuuna noqon karaa filimka ugu sareeya Akshay Kumar maadaama ay u muuqato inuu gaari karo ilaa 192 karoor. Laakiin wax badan ayaa ka xirnaan doona ganacsigiisa in uu gaaro toddobaadyada soo socda. Filimkan waxa uu noqon doonaa filim superhit ah waxaana laga yaabaa in uu noqdo mid ka mid ah 5 filim ee ugu sareysa ee sanadkan aan soo dhaafnay la daawaday. Lacagaha Good News uu keenay isbuuciisa koowaad waa 126 karoor halka jimcadiisa labaad uu keenay 8.5 karoor. Total waa 134.5 karoor. Sidoo kale filimka The Bank Tree waxa uu soo xareeyay 50 lakh jimcadiisa saddexaad, taasi oo la micno ah in 80% hoos u dhacay 80% hoos u dhac ku yimid toddobaadka, taasi oo la micno ah in ay noqon doonto halgan si loo gaaro 140 karoor. Toddobaadka soo socda filimkan ganacsi wanaagsan ma arki doono sabab la xiriira sii deynta cusub ama filimada cusub ee la sii daayin doono, waxaana laga filayay in uu gaari doono ilaa 150 karoor, waxaana laga yaabaa in uu ku burburi doono toddobaadkiisa saddexaad. Ganacsiga The Bank Tree ilaa maanta waa sidan soo socoto. Isbuuciisa koowaad waxa uu keenay 123.75 karoor halka isbuuciisa labaad uu keenay 20 karoor. Jimcadiisa saddexaad waxa uu keenay 50 lakh. Total waa 134.5 karoor. Waxaa la yaab ah in filimkan 2 isbuuc iyo 1 maalmood oo ku keeno 134.5 karoor iyo filimka Good News oo asina keeno 1 isbuuc ama 8 maalmood gudahooda 134.5 karoor. Laakiinse filimkan The Bank Tree waxa uu la kulmay rabshado toddobaadkiisa koowaad maadaama ay ahayd isbuuca ugu fiicnaa ee ganacsi wacan u sameyn lahaa. Sidoo kale waxaa tiyaatarada saarnaa filimka Mardani 2. Filimkan ayaa helay tiyaataro fiican toddobaadkiisa saddexaad maadaama uu keenay 5 karoor, wuxuuna saddexdiisa toddobaad gaaray 45 karoor. Filimkan wuxuu si habsami leh u socdaa labadii toddobaad ee la soo dhaafay iyadoo loo tixgelinayo tartanka weyn ee ay kala kulmeen The Bank Tree iyo Good News. Ganacsigii ugu dambeeyay ee filimkan ayaa hadda hubanti ah in uu ka gudbi doono 45 karoor, wuxuuna ku sii dhowaan karaa 50 karoor. Dhanka kale filimka Jumanji heerka xiga waa la yaab mise lama filaan, sidoo kalena waa hit oo 2019 maadaama filimkan fursad u lahayn in uu gaari doono 60 karoor wax ka badan maadaama uu hoos u dhacay maalmihii dambe ee isbuuca koowaad. Waxaana jiray The Bank Tree iyo Good News in ay soo baxaan, laakiin filimkan wax badan ayuu qabtay, sidoo kalena waxa uu ka faa'iideystay ciida sanadka cusub. Hadda ganacsigiisa waxa uu marayaa in ka badan 57 karoor, wuxuuna eegayaa cimri ahaantiisa ilaa 60 karoor. Mardani 2 ganacsiga Mardani 2 ilaa taariikhda ama ilaa iyo hadda waa sidan soo socota. Toddobaadka koowaad waxa uu keenay 27.92 karoor. Toddobaadka labaad waxa uu keenay 12 karoor. Toddobaadka saddexaad waxa uu keenay 5 karoor.
total waa 44.92 karoor. Jumanji asana waa sidan soo socota. Toddobaadka koowaad waxa uu keenay 33.98 karoor, halka toddobaadka labaad uu keenay 14.5 karoor. Toddobaadka saddexaad waxa uu keenay 9.50 karoor. Total waa 57.53 karoor. Waxaana halkan u week warbixinada maanta ku soo qaadanay wararkii ugu dambeeyay aflaanta tiyaatarada Hindiya saaran iyo ganacsiga ay sameeyeen. Fadlan haddaad ku cusub tahay kanalka ama channelka, subscribe saar, gabalaalka riix si muuqaal walbo kugu soo dhaco. Waad mahadsantahay daawashada aad daawatay. Waa walaalkiin Cabdiqaadir. Waxaan idin leeyahay bye bye.